laba geed oo mucjiso ah. Waxay daawo ka yihiin in ka badan 50 xanuun. Nasiib daro geedahaasi way ka baxaan dhammaan dhulka Soomaalidu degto. Balse ma yaqaanaan. Maanta ayaa kugu dambayn doonta farmasi aad dawo u doonato. Keliya fiidiyowgan dhamayso. Marka aad aragto faa'iidooyinka dhirtan waxa aad is odhanisaa. Waxaan waa buunbuunin balse xaqiiqdu waxa ay tahay waa run biyo kama dhibcaan ah. Afka qalaad waxaa lagu yidhaa ashwagandha. Soomaaliduna waxay u taqaan guryoon ama guryofan. Haddii aad garan weydo ayaydaa weydii. Geedkan mucjisadiisa waxaa ka mid ah xataa inuu daaweeyo xanuunada maskaxda ku dhaca sida dhimirka, istariska, iyo weliba neerfaha. Shayga ugu muhiimsan ee geedkan loo isticmaalaa waa inuu sare u qaado awoodda raganimada. Ashwagandha waa geed loo adeegsado inuu jidhka siiyo tamar iyo awood. Waana geed haddii aad isticmaasho aadan dareemi doonin wax daal ah shaqo kasta oo aad qabato. Geedkani wuxuu si cajiiba ugu hortagaa burooyinka iyo unugyada kansarka fidiya. Wuxuu awood siiyaa murqaha jidhka waana sababta ay u isticmaalaan dadka dhisa jidhkooda. Ugu dambayntii geedkani waa xalka qof kasta oo bilaa sabab moodkiisu isku badbedelo. Moringa. Geedkani waa mid ka mid ah hadiyadaha Eebe ku galaday bani'aadamka. Geedkan waxay dunidu uga magac dartay boqorka geedaha faa'iidadiisa awgeed. Geedkan waxaa lagula tacaalaa dadku uu ku dhacay xanuunka Soomaalida dhibay ee dhiigkarka. Geedkan waxaa lagu naanaysaa hooyada fitaminada, dadkuna waxay u isticmaalaan nafaqo ahaan. Wuxuu badiyaa caanaha hooyada xilliga naasnuujinta. Aan soo koobo. Waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah daawanta xiiqda, calool istaaga, shubanka, madax xanuunka, wadna xanuunka, kalyo xanuunka, caado wareerka, cudurrada maqaarka ku dhaca, iyo qaar kaloo badan.